waa Layli TV iyo barnaamijkeena hadda iyo dan waxaan barnaamijka u soo baxay khiyaartii dad ka mid ah oo runtii soo dhageystay soo arkay waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo magacaaga saddexan adoo noo sheegaya Amisom shir bay qabatay wuu socdaa bari waan noo dhimanta hadduu alle ma ognahay maxaa ka ogaatay maxaa rabi lahayd inaad wax ka tiraahdo horta hore waa mahadsan tahay magacayga waa Saalax Muuse Warsame fursadu ma yeelan horta nimankiinaan su'aalo weydiiyo video yar bayna tuseen oo ay naga tuseen Soomaaliya iyo siday u burburtay hase ahaatee burburka Soomaaliya burburka Muqdisho qayb waxa ka qaatay Soomaalida dagaalamaysay oo xukunka uu ku dagaalamayay ha noqoto dawladii Maxamed Siyaad Barre iyo nimankii la dirirayay iyo nimankii dhaxdooda ka dirirayay dhulkii markii dambe waa la dhisay Ethiopian baa yimaadeen waa sii burburiyeen Amazon baa timaaday way sii burburisay caawo meesha waxaa dhacday in la yiraahdo hal daqiiqo loo istaago askartii Amazon ahaa oo meesha ku dhimatay boqolaaladii kun oo Soomaalida ahaa oo ku dhimatayna hal daqiiqo lama siin xataa markaan horta hore taasi waa ka xumahay midda kale nimankan Amazon waa inay noo sheegaan waqtiga Soomaaliya joogayaan waxaan rabnaa inay wadanka nooga baxaan hal san haday joogaan waa alxamdulillah maanta shabaab ay la dirirayaan berito tolowye la diriri doonaan marka waxaan rabnaa nimankan Amazon ah ma rabno haddaan ogaan lahayn inay imaanayaan attorney general kan u tagi lahayn maxaa yeelay kulligood waa gacan ku dhiglayaal dagaallo waxay galeen oo maaragtay dagaaladan oo crime war crimes ka ayay Soomaaliya ka galeen attorney general kan u sheegi lahayn warqad baan u qori lahayn waxaan oran lahayn nimanka generaalada qaarkood oo meeshaan imaanaya hana loo xirxiro maxaa yeelay dad bay laayeen Soomaalidana way heshiin kartaa weligeed way heshiin jirnay dagaal waana dhex mari jireen laakiin markii dawladaha dariska ah ama ha noqoto USC ama ha noqoto nimankan hadda Somaliland iyo Puntland jooga oo u adeega maaragtay dawladaha ajnabi markii horeba qalad bay ahayd in dawlad daris oo Itoobiya kala ah in caawina loo raadsado maxaa yeelay Itoobiya hadda maalin kasta daday soo diraysaa oo wadanka burburiya iyo ummadii burburisa dadkii waxay u baahan yihiin inay isku yimaadaan qabiilka ambaas oo maaragtay oo meel xun naga tuuray inay joojiyaan iyo inay isgacalaystaan wadankan American ay isku caawiyaan intaas baan leeyahay Amazon waxaan leeyahay enough hana dhaafaan wani mooriyeer hana la joogaan hanaga tagaan maada dareemeyn inay lahaayeen ilaa waxaan gaarsiinaynaa one man one vote macnaheedu waxa waa ilaa 2016 bay joogi doonaan uguma baahnin 2016 haddaan gaarnane waxaan rabnaa 2016 inaysan dhaafin maxaa yeelay waxaa markaas imaan doonto in shacabka ay la dagaalamaan Amazon dhibkaas kale taa imaan doona yaa isku halaynayso ogta dadka Soomaaliyeed inaysan dhexdooda inta heshiiyaan 22 sano isleeynay 22 sano haddaan isleeynay Amazon baan hadda ku kala badbaadnay see hadda u aragtaa marka hadday naga tagaan soo meeshaan ku noqon mayno waa dhici kartaa laakiin uma badno maxaa yeelay marka ugu horeyso horta hore Amazon iyo waxaan iyo waa dawladda Amerikaanka wadata dawladda Amerikaanka ayay mas'uuliyad ka saaran tahay ama Obama ha noqdo ama ninkii doona noqdo madaxweyne imaan doona inay dad Soomaali fiican ayaga dadka ka dhex doortaan oo aysan dadka ka dhex dooran nimanka ugu xun nimanka maanta waxa Amerikaanka la shaqeeya ama dawladda Minneapolis ha noqoto ama ha noqoto Soomaaliya gudaheeda Soomaalida ugu xun baa la shaqeysa oo aan maslaxadna rabin ruufyaannimo iyo saqajaannimo iyo balaayo ka dhex taagan Soomaalida qabiil walba dad fiican waa leeyahay dadkii fiicnaaha soo baxaan ha hadlaan codkooda ha la maqlo ani sidoo kale waxaan leeyahay aniga Soomaalidaas aan rabaa inaan wax la qabto ma doonayo nimankan Amazon ay wadato ama Mareykanka maanta nimanka uu na horkeenayo na horboodayo inaan la shaqeeyo dawladda Soomaaliya ka dhisan waa tii ugu roonayd so far marka rajadeeda waxaan u rajaynayaa inay dawladnimada dadka dhan wada gaarsiiso aad u mahadsantahay assalaamu bismillahir rahmaanir rahiim halkaan kala hadlayno waa St. Louis Park in Minneapolis St. Louis Park area hotelka la yiraahdo Double Tree oo uu shirka socdo shirkaas oo ay qaban qaabisay Amazon oo mataqaana isugu keentay dawlado badan oo kala duwan hadda waxaa la marayaa qaybtii sharaxaadda waxyaabihii Amazon ay soo qabatay hadda waxaa maanta nala jooga waan rabnaa magaciisa saddexana inuu noo sheego sida uu arko shirka Amazon iyo waxyaabihii ay noo sheegtay sida uu aragtaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waa mahadsantahay wardheere magacayga waxa waay Mustafa Sibriya Xalane waxaan ka mid ahay jaaliyadda reer Minnesota
asal ahaanna ka soo jeeda gobolka hiiraan marka shirkan aad ugu faraxsanahay in aan la kulmo rag ka socda Amazon oo uu ka mid yahay afayeenkii Amazon oo aan isku barno Cali Aadan marka aad ugu faraxsanahay. maxaad u malaynaysaa reer Minnesota ba ka faa'iideen furitaanka dadku ma ka soo qayb galeen see u aragtaa ka soo qayb galka dadka ay taqaana reer Minnesota ka soo qayb gala shirka waa waqtiga shirarka Minnesota marka la yimaado aad loo imaan jiray maxaa ka khaldan midkan aad loo imaan والله horta dadka inta badan waxa u malaynayaa sabaha ay ugu soo qayb gali waayeen in ay tahay Saturday oo Saturday inta badan ay busy tahay Soomaalida shirarka caadina waxa loo qaban jiray maalmaha Axadda oo xooga maarkino weekendiga ugu dambeeyo oo qof kasta uu helayo waqti uu ku imaado haddana waxaan dhihi karaa rag culus oo maarkino jaaliyada Minnesota matala ayaa ka soo qayb galay oo dhinac kasta marka aad ugu faraxsanahay aniga naftigay inaan ka soo qayb galo shirkan Amazon ee la yeelatay jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Minnesota ma isleedahay dawladda ka fiicnaan lahayd inay shirkan noo qabato wallahi su'aalaha aan jecelahay in aan meesha ka weydiiyo haddii ii suurto gasho waxaa ka mid ah Amazon hawsha ay qabatay ama ay wado ee ula kulmayso jaaliyadaha dibadda waa hawsha loogu talagalay inay qabato dawladda Soomaaliya marka ma u malaynaani mandate inay u haysato in ay jaaliyadaha Soomaaliyeed ay la kulanto hadda ninka Amazon ka socda ee hadlay waxa kamid ah hadaladiisa in maarkino afartii qodob oo soo daliilsaday waxa kamid ah inuu dhahay reconciliation between Somali brothers marka Somali brothers Amazon looma keenin in maarkino Amazon waxa loo keenay in ay wadanka difaacdo peacemakersna ay noqoto al-shabaabna gobolka ka xoreyso laakiin arintaas oo reconciliationka waxay u taalaa dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waa mahadsan tahay maxaad kula talinaysaa dadka Soomaaliyeed reer Minnesota shirka bari dhacaya oo Sunday oo la rabo in laga soo saaro communique wallahi waxaan jecelahay in ummadda Soomaaliyeed reer Minnesota ay ka soo qayb gasho shirkaas wixii fikradahoodana ay ka dhiibto ra'yigoodana ay ku darsadaan waa mahadsan tahay bismillah sidoo kale waxaa maanta aan fursad u helnay akhyaarta nin kamid ah akhyaarta reer Minnesota oo aan jeclahay magaciisa saddexna inuu noo sheego sidee u aragtaa shirka ka dhacaya hoolkan hadda aan taaganahay iyo waxyaabaha ka socda ma waxaad u aragtaa wax Soomaali leedahay mise waxaad u aragtaa wax Amazon Union leedahay oo dadka Soomaalida raba in mutaqaana ay u sheegaan ayagu mise Soomaaliba wax sheegaysa sidee u aragtaa dadku waxaad dad badan ku fiisan arkay aad baan maasan tahay waraysigaad nala yeelatay iyo bahda TV-ga marka hore waa idin mahad celinaya marka labaad Amazon inay noogu timaado Minneapolis Twin City iyo Mareykanka aniga personally waxaan u arkaa arrin aad iyo aad noo dhibayso oo aan wanaagsanayn sababtaan u leeyahay waxa weeye Amazon waxaa loo idmaday inay la shaqeyso dawladda federaalka dawladdii federaalka ayaa wadanka ayay wakiil ka tahay wixii tala ah iyo wixii tusaale ah waxay ka helayaan dawladda federaalka marka waxa habooneed shirka maanta lagu qabtay Minneapolis inuu ka dhaco Beledweyne inuu ka dhaco Kismaayo inuu ka dhaco mataqaana Baydhabo in xoolaha lagu bixinayo hoteelada waaweyn ee ku yaala Minneapolis ay ku baxaan dalka gudihiisa ay aad u habooneed imaashada intii yimaadeenna waxay noo muuqataa inay noo sheegayaan waxay dalka ka hayaan annaga waan ognahay waxa wadanka ka socda laakiin arrintan waxa aad uga baahnaa oo maanta dadka dhibaatada haysata ee Soomaalida ah ee dalka jooga in workshopkan loo qabto ayaa habooneed aad u mahadsantahay su'aasheeda labaad waan rabaa inaan ku weydiiyo yaa dawladda federaalka socdo oo mataqaana workshopkan qaybka runtii markaan fiirinay wafdiga meesha jooga ودمانته وحي إلى مقدن متقارنا إني كصعدان أما سوم كلية ما أنا أرى واحد فدرال كصعدة أما واحد يريق لينايا أما واحد صائد مري أو كصعدة ما يسنش شيء إني حتى وكيل كين دولة ده ما أنا مقل إني هوست كان دولة ده مركز درتيد وأما سوم كلية واحد شركة جو سانو أركو ما إسلام دتك الصومالي الرئيس Minnesota warka shirkan Amazon inuu jiray inuu san jirin ba wali war badan ma gaarin oo dadku imaanshaha dadka markaa fiirisid dadku maba oga ma isleeda marka aad u fiirisid hoolka lagu qabtay oo qiyaastan ku qiyaas inuu qaadayo 70 ama 80 qof waxaad garanaysaa dadka degan Minneapolis oo ku dhow 36,000 iyo ka badan lagu qiyaasay ama 100,000 kor u dhaafayo inay tahay shirkan shir dad gaar ah loo dhigay oo dad yar loogu talagalay inay ka soo qayb galaan maba loogu talagalin asalkiisa horeba in dad badan yimaadaan aan ka arkayo dad badan lama oga inuu magaalada ka dhacayo aad u mahadsantahay bismillah sidoo kale waxaan fursad u helnay dhalinyaro nin kamid ah akhyaarta dhalinyarada reer Minnesota
oo runtii magaalada caanka ah haddana aan rabno hadduu allayno bal inaan asagana weydiinno seebaad u aragtaa shirkan ka socda Minneapolis especially Double Tree Hotel oo ku yaala St. Louis Park adigu see ku ogaatay yaa kuu sheegay ma filaysaa inay wax fiican ka soo baxayaan shirka ma shir Soomaaliyeed ba ma shir Amazon ba bal dhowrkaas su'aalood inta maskaxdaada ka shaqeeyaysid bal noo sheeg fakarkaaga siduu yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز رواد السلام دمانتين مركز حاجة وحنك هذا ويب سايت كهيرا أونلاين ورنتي حيسيس كنت بدنا نسوق له رنتي مركز هرا وأكوار سنة واحد رسمي على هاللايو مادام ودك الدولة كجرتو كبح الفدراليزم كي وحكينا عملي صوم يعني إلهي قربها دتك كده وتماذا رنتي مركز بس يعني حقيقة وقاعدة تاسع كنتي مركز هرا runtiina waa dhageystay qayb ka mid ah speechka sidoo haduu socdo waxyaalahan ka faa'iido waxa ka mid tahay inaan ogaano yani waxa ay qabanayaan sida systemka ku socdaan shaqadooda ay tahay Amazon wax wanaagsan way ka soo bixi karaan haddii laga midoobo maaragtay Soomaalida oo dhan inta badan maaragtay noqdaan dad isku duuban oo maaragtay fikirkooda u gudbiya Amazon qaladaadka jirana maaragtay loo sheego wixii ra'yi ahna lagu kordhiyo oo dhici karta inay wax wanaagsan ka soo baxaan misleedahay Amazon inay shir noo qabato waa khaldantahay mise waa saxsantahay sida aragta runtii waa la socotaa 20 sano burbura wadankii ka dhacay nidaam darra ka jirto xataa dawladda nafsadeedu waxyaalo badan baa ka maqan waxaad malaysaa xisaamaha isku dhaxyaac inuu jiro laakiin haddana waxa la wixii maslaxadda ku jiro waxaan u malaynayaa in la soo dhaweeyo aragtida aan qabo inkastoo doorkaas ay lahayd door inay dawladda qaadato ay timaado ay dad soo dirto ay shaqada ayada qabato haddana haddii Amazon qabanayso oo uma arka wax dhibaato ah inay ku jirto wax wanaagsan mar walba la fiiriyo ayay ku habboon tahay aragtideeda wax dawladdu aad garanaysa ma ku jireen waxaa ka wadaa maamulka dawladda federaalka dad aad ka garatay oo meesha maraya ma garanaysa garanin laakiin sida u jeedin waxa ku jira nin la yiraahdo Cali Umar oo speakerada kamid ahaa oo magaca dawladda ku matalaya hadana qaldanayn soo marka warbixintu dhiibaanay marka dhageysatid waxay ila muuqataa inuu maaragtay dawladda levelada soo martay uu ka hadlayay xilliyada soo martay oo tusaalooyin uu soo qaatay wadada Makal Mukarrama xilliga Sheekh Shariif ilaa iyo hadda isbedel ka jiro marka waxaad malaysaa inuu magaca dawladda ku hadlayay ninka odaga ah saasaan u maleeyaa waa mahadsantahay walaalku bismillaah waxaan filaynaa inaad garanaysaan waa walaalkeen Shaafi ama Xaashi Shaafi oo runtii aad taqaanaan oo magaalada u baahnay in la sharaxo Shaafi waa nin arrimaha bulshada aad uga soo shaqeeyay waa nin fahamsan waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka jira Shaafi waxaan maanta bal ka rabnaa inaan wax ka ogaano shir weyn baa halkan u nimid Amazon baa soo ka yeertay dadkii Soomaaliyeed wax garadka ahay dhan bay u yeertay seeba horta kula muuqdaa shirka shir sidaa weyn runtii horta bismillaah marka hore waxaa farxad weyn ah Layli TV Layli magaca sax wada Soomaaliya farxad weyn ay tahay waliba inuu gacanta mikrofoonka ugu jiro maskaxdiisana ay ka dambeysay saaxiib qaali oo aan jeclahay walaalkay qaali Maxamed Cabdiraxmaan ma sha Allah wardheer Ilaahay khayr ku siiyo aan ogaa waligaan ku ogaa runtii uu istaagida danta guud ee Soomaaliya iyo wanaaga sharafta ummadda waa ku mahadsantahay adiga bahdaadaba runtii wax lagu farxan u arkaa inay sameeyeen inay reach out ay sameeyaan inaan ogaano waxa ay yihiin anaga audience-gooda ma lihin Soomaaliya horta audience u ah anaga dad Soomaali Mareykan nahay laakiin haddana wadanka Soomaaliya aan ka nimid oo runtii dadka wali dib ilaa hadda yaala tala bixin iyo waxaan ku leenahay iyo wixii wanaag aan tari karnaba mar inay xusuustooda ay ku dareen inay diaspora ay reach out ku sameeyaan ay dhageystaan waxaan u arkaa runtii wax fiican inay tahay kulli waxaan ogaan doonaa caawa maadaama uu bilow yahay habeen dambe insha Allah iyo outcome ka soo bixi doono shirkan laakiin sida muuqato reach out ka ay sameeyeen inay maanta ay xiriiro badan la sameeyeen waxgaradkii bulshada kala duwan ganacsatada ha noqoto culimada diinka aqoon-yahano badan ay la kulmeen saan maqlay waxaan rajaynayaa insha Allah ardayda dumarka waxaan rajaynayaa insha Allah kulli talooyinka la siiyay inay qaataan oo ay ku camal falaan laakiin Soomaaliya ilaaha u maqan ayagana waxaan aaminsanahay kulli Soomaaliya ilaaha ayuu wax qabsan kara cid kale wax qaban kartana ma laha taasaan kulli waxaan dadka ay xoog saaran loo baahay waxa aad loogu soo ceshay Soomaalida iyada wax qabsan karta laakiin amalka iyo meesha waxaan uga jeedno uma muuqato dad Soomaaliya wax qabsanay dad wax loo qabanaya noo muuqda marka dadka been baa loo sheegay waxa leeyahay Soomaaliduna idinka wax qabsan kara haddana dhaqanka waxaan dareemaynaa in Amazon oo aan ku ogeyn Muqdisho
aan ku ogeyn inay maanta Minnesota noogu timid oo dadkeena citizeniska ahaa ay rabto inay u sheegto waxay Soomaali iyo barnaamijka ka rabto inay u samayso iyo say wax u soo qabato u sheegto marka miyaysan muuqanin dad Soomaali wax qabanaya inaysan bajirin wali aan gacanta ku jirno Amisom runtii waa ku raacsan walaalkay Soomaaliya maanta xor maaha saan wada ognahay dhinacna hal yiraahdo argagixisa dagaalka la jirta kaga jirta oo dadka baabiinaysa kuwa yiraahdo waa idinka difaacayna oo isku habar wacda adduunkan iyo Afrika nooga yimid runtii inay ayaamahan ii muuqataa mustaqbalka dhow Soomaaliya wax ka qabsatana waxay u baahan tahay waqti badan saad wada ognahayna maanta waxaa ku filan lahayd kaliya ciidamada wiilasha Soomaalida ah oo ciidamada Soomaaliya maanta tababarada ku socda ama loo soo tababaray in si fiican loo hubeeyo mishaar ku filan la siiyo waxay la tahay African Union ma loo baahnaan lahayn waan laga maarmi lahaa inta taa laga gaarayo marka waxay la tahay adkaysigeedii lahaano waayo adoon tabar lahayn maanta lagu taliyo hadaa lahdo waan ka hor imaanaa wixii socday waxay malaysaa inaan taa rabta aadan gaarin marka waxaan leeyahay hasamran aan samarno insha Allah samarka waxa la inuu nagu liid gareeyo in awood inaga aan leenahay ay ka soo baxdo insha Allah mustaqbalka laakiin waxa mahad ilaahay maanta Soomaali badan wax qabadkooda waa la arkay adduunka hadaa fiiriso waliba waxay aad u firfircoon yihiin banaanka iyo wadamada kale Soomaaliya gudaheeda ahayn waxaan rajaynayaa gudaha firfircoonida banaanka hadda ganacsiga waxa la sheegay wiil ka yimid South Sudan bangiga afraad inay Soomaali ka furto South Sudan waxaan aaminsan haday ka fur lahayn Soomaaliya dagaalada xataa iska dhiman lahaayeen ganacsiga noocaas oo kale ah marka ilaahay ka dhigo kuwa Soomaaliya ku wax qabsada oo ka maarma in wax loo qabto markastana gacanta sareyso ma qiimo badan kuwii sareyna noqona aad u jeclaan lahaa laakiin waxaan rajaynayaa inay list isku day ay tahay wanaagsan inay dhahaan bal Soomaalida qurba joogta ah oo Soomaaliya ka dhiman weyday 20 sano dagaalada socdeen waxaan ku rajaynayaa inay dareemeen inay dhageystaan ama xog warsi nala yeeshaan waxaan ilaahay ka baryaynaa inay kuwana qaataan waxyaabahan u sheegno qaarkood ay dhaqan galiyaan waxa kula talinaysaa dawladda Soomaaliya ee federaalka ah oo runtii aan ognahay ammaankeeda iyo waardiyaheeda iyo wax isku xirkeeda ay Amisom gacanta ku hayso waxa la joogaa waqtiga dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed wixii la isku sameyn karay waa la isku sameeyay haddana wali waxaad moodaa dawladda Soomaaliya dib u heshiisiin inaysan wali bilaabin oo ay runtii ay wali ay horumarayaan ama hor socdaan sida Amisom oo kale marka Amisomna wayna dhageysanaysaa runtii oo kallay waxa dadka Soomaaliyeed reaction-kooda way maqlaysaa ama dareenkooda way dareemaysaa si hore loogu socdo maxaa Amisom kula talinaysaa maxaad kula talinaysaa dawladda Soomaaliyeed adoo oday aan ku ogaa أنا أرسل لما أرن وأي مقطع مدن capacity building إلا دولة دي ما تبر ما هيسو وحي كسو بعد الترانسيشن حال سنة جرتا إذا أغمي من ماشي دسن وحقوق بسن كرتو أما يسكو إلى كرتو institutions دسن وحقوق من كلنا ما يجرين reconciliation ساو شيكتا أما دبوهشين توحوها مد لو بهنا وقت لقالة لقليو وقت لقليو حل كسلمة بدن الله سماية waxaan ku faraxsanahay hadda Amisom markaan fiirino intii ay meesha joogtay actionkii ugu horeeyay inay at least maanta la taaban karo waxyaabo badan way qabteen qaarna la taaban karin iyo qaar la taaban kara laakiin midaan arkay markay noqoto xagga dib u heshiisiinta arrinta Djibouti ay ka sameeyay waliba ay horukacaysay dawladda Djibouti oo qayb ka ah Amisom wixii ay ka qabatay gobolka Hiiraan oo ahaa dib u heshiisiin dhab ah in shacabkii deegaankaas deganaa la heshiisiyo kadibna loo dhiso waxay ayagu rabaan oo mar dhow rajaynayo xataa doorashooyin ay ka bilowdaan wax macnaha aad u farxad badan waay marka Amisom ma sameyn kartaa midaas oo kale ma ka sameyn kartaa meelo kala duwan taasaan jeclaan lahaa inay horumarka dawladdu waxay ka caawinaysaa in noqoto dib u heshiisiinta noocaas oo kale ah in laga sameeyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah si dadka deegaanka wada deganaa ay nabad ku wada noolaadaan waxay ayagu jecel yihiin ay ku gaaraan mustaqbalkooda mid kale talada dawladda aan siinayo dawladdu waxaan jeclaan lahaa inaan tala ahaan aan ka siiyo inay si kasto uga faa'iideysan karaan Amisom joogitaankooda aysan noqon kuwa mustaqbal fog si jooga ee ka faa'iideysta maanta inay capacity-gooda ayagu ku dhistaan maxaan ku dhahay wiilashoodii dhalinyarada ee Soomaalida oo dhibaataysna gaajasna ee diyaar u ah wadaniyiinta diyaarna wadanka inay wax ka qabtaan inay tababaro fiican oo ciidan la siiyo dhaqaale fiican mishaarna loo raadso hub fiican iyo loo dhiibo maxaan ku dhahay iyo qalab ay ku difaacaan wadanka macnaha ay uga difaacaan kuwa cadawga ama nabadda badiidan laakiin waxaan arkaa inay maanta ay jirto in la tashi badan ay la abuuraan Soomaalida gudaheeda inay baahida ugu weyn ay tahay loona baahan yahay waxaan rajaynayaa taana inay ku foojignaadaan insha Allah qof kasta Soomaaliya ay soo dhaweeyaan fikirkiisa soo dhaweeyaan wax kan wax diidan la dhageysto
kan wax ogolan la yidhahdo hor meesha ka sii soco taasna waxaan u arkaa talo wanaagsan ee u ahaan lahayd wax ku oola soomaaliya maanta ma u baahna maxaan ku dhahay midi ku taagayo hebela inta ka baxay anna waa ku dayanaa ma u baahna waxay u baahan tahay in insha allah la isku dulqaato la isku sabro dadaal weyna la sameeyo insha allah saan uga gudbi lahay marxaladan dib dambe saan noogu soo noqon shaafi aad baa u mahadsan tahay kusoo dhawow layli t v iyo barnaamij aan ugu magac daray hadda iyo dan oo insha allahu tacaala aan ku qaadaa dhigi doona waxyaabaha probleemka ka jira ee dalkeenna iyo dadkeenna ama qurbaha ahaato ama gudaha ahaato annagoo xal raadin doona hadduu alla idmo mar walba solutionka raadin doona xalka raadin doona oo aan problem insha allah ka shaqayn doonin marka aad baa u mahadsan tahay mudane shaafi walaalkay maxamed cabdiraxmaan wardheeri aad iyo aad u mahadsan tahay runtii waxaan jecelnahay saad u sheegtay inaan soomaali dhan ay xalka qayb ka ahaato problemka aysan qayb aanan ka noqon waxaan filayaa insha allah barnaamijkaas inaan sugayno insha allah diyaarna inaan kala qayb qaato waa mahadsantahay assalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa magacaaga saddexaan horta inaad noo sheegto kadibna waxaan kaa codsanaynaa waxaad ka soo baxday shir Amazon ay qabatay see baad u aragtaa shirkan magacayga horta waa maxamuud jaamac xaamud baa dadku u yaqaaniin shirkan hadda aan ka soo baxay horta weli ma dhammaan waa maalintii hore berinta hadhay waxa weeyaan waa markii ugu horreysay horta waan ku mahadinayaa maxay tahay African Unionka ama Amazon inay noo yimaadaan annagoo joognaa Minnesota oo wax naga weydiiyaan waxyaalaha meesha ay ka qabanayaan marka dialogue baa furmay waxyaalo badan oo ku dhaliilsanahay waa jiraan waxyaalo ay qabteenna waa jiraan marka hadda waxaa ka sii wanaagsan inaad ila hadashid berito galab markay dhammaato wixii aan nagu sheegin haddii la qaatona dee marka waxa weeyaan waa well and good waxa kuna maaha ra'yigu dhinac qura oo mas'uul waa two way street wixii dadkiina waa ku dhegeysanayaan adna de wixii aad qabtid baa u sheegaysaa laakiin meel common ground oo la isugu yimaado dhexdhexaada meesha dhexdhexaad haddii la isugu yimaado oo la qaato talooyinkii dadku soo jeediyeen dee waa wanaagsanaanta laakiin mid baan idiin sheegayaa problemka Soomaaliya ka socda Amazon ma samayn marka hore Soomaali baa samaysa Soomaalina baa ka saari karta cid kale oo dibadda inoo ka timaado inoo ka saaraysana ha ku riyoon inay jirayso qolo kastii mashruuc bay ka dhiganaysaa mashruucuna mid dhamaanaya maaha wassalaamu calaykum waraxmatullahi xamid hal soo intaad iga tagin hal kelmad intaad iga tagin xamid sida aad sheegtay danta Soomaalida problemka Soomaali baa xallin karta meesha khaldanay in Amazon loo soo diro hadday kuwii iyagu ina mataliya inoo ima waayeen dee cid kasta waa inoo imanaysaa waa maadanta bismillahi raxmaan raxiim haddana waxaan runtii aan rabnaa inaan kelimada aan weydiino su'aalo nin aan rabno magaciisa saddexan asagoo noo sheego sida dadka oo dhan kadibna waxaan u gudbi doonaa su'aalihi cabdullaahi axmed cabdullaahi riyaada asari baan ku magac dheera asari waxaad tahay nin siyaasi ah oo la yaqaano waxaad maanta ka soo qayb gashay shir ay qabatay Amazon oo lagu qabtay labada magaalo mataanaha ah ama sabarbankooda lagu qabtay muddaad fadhiday runtii waxaa dadkii aadka u dhageysanayay baad ka mid ahayd maxaa kaaga soo baxay shirkan horta runtii waxaan fiicnaan lahayd mar horeba inay iscadeeyaan waxa Amazon ay ka samayso Soomaaliya waxa weeye dadkii qurbuhu soo aaday inagu wadankii bay joogtaa dadka wadanka jooga qaar waa ka warqabaa waxay samaynayaan iyo waxay ka qabanayaan xagga laakiin dadka qurbaha jooga iyo meelaha kale ayna gaarin waxba ma oga marka inay iscadayso inay la dagaalamayso maxay hayto dad dawladdiida way fiicnayd haddana ay gaarsiiso waxa kaloo ay qabanayaan oo ay ka mid ah humanitarianka iyo wixii la mid ah inay qabanayso inay iscadayso way fiicnaan lahayd laakiin haatan hadday bilowdayba way fiican tahay balse aan ogaano sida loo sheegay bal waxa ilaa bari lagu hadaaqo oo ay sii mataqaanaa caddayso bal aynu ogaano inay leadershipka qaadato ama hoggaanka ay qaadato inay dadka iyada soo gaarto oo mataqaanaa ay fakarkeeda caddayso taa macnaheedu ma waxa weeye Amazon baa dalka haysata miya macnaheedu oo dawladda Soomaaliya uma ay baahna inay dadka Soomaaliyeed u timaado uma muuqanayso Amazon in iyada waxa go'aanka gudahana iyadu ay gaarto kan dibadda ay dalka ugu tagaysan in iyadu gaarto miyaysan arrintaa dawladdeena Soomaalida ku ahayn arrin aan fiicnayn Amazon sideeda waxay la dagaalamaysaa cadow dawladdiida bay la dagaalamaysaa dadka Soomaaliyeed qaar baa wuxuu u arki karaa inay cadow tahay laftigeeda marka waxa weeye inay Soomaalida caawinayso oo ay Soomaali la jirto oo ay ka qabanayso dad cadow ah inay iscadayso way fiican tahay way ku habboon tahay wayna dahday isaan qabo
marka hadday soo caddayso oo dadkii u sheegto waxaan qabaa inay tahay iikeen inay wanaagsan tahay. maxaa jeclaan lahayd shirka inuu ka soo baxo? waxaan jeclaan lahaa wax weyn inay ka soo baxaan dadka Soomaaliyeed. runtii guux baa ku jira sidaan magaalada ku arkay. guuxaas inay iska daayaan, dhageystaan, ka doodaan, wax weydiiyaan, waxa ay mataqaanaa dariiqada kaga sheekeynayaan, meelaha kaga sheekeynayaan inay weydiiyaan oo ay yidhaahdaan maxaa tihiin, maxaa mandate ku tihiin oo mataqaanaa iikana aad tihiin, inay yidhaahdaan way habboonta, way la habboonta. dadku waxay leeyihiin imaanshaha amisom dad yar baaba og, dadku ma wada oga. dadka Soomaaliyeed miyaysan dareemaynin inaysan si fiican warka loo gaarsiin? taas waxay ku xiran tahay dadkii ay soo dalbatay oo qabanqaabiyaasha ah oo ayada uga soo horeeya meesha inay sameeyaan maxay too advertisement iyo mataqaana flyers iyo ay u qaybshaan. taas waxay mataqaana managementigoodii bay ku xiran tahay. marka laakiin ayagu eedda kuma laha, dadku waa dad noo yimid. annaga laftigeenu anigu sidaan maqlay magaalada waa wada gaartay mar horeyna xaaladaan ahayd oo laga sii digayay. marka ayaga waxaan u malaynaya inaan volti ku ahayn in laga soo qayb galo. haddana si fiican waa looga soo qayb galay. miidiyada inay fiirsadaan, joornaalada inay akhristaan, websaydyada inay akhristaan oo ka fiiriyaan, wixii su'aalahana ka weydiiyaan miidiyada wixii aan ka soo qayb galin. way la habboonta. aad baa mahadsan tahay Asari. waa Layli TV iyo barnaamijkeena hadda iyo danba wali noo socda. waxaa marti noo aan aan jecelna insha Allah taala magaciisa saddex noo sheegto, kadibna aad noo sheegto waxa ka socda shir dadka Soomaaliyeed la isugu yeeray oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya. shirkan waxa qaban qaamisa amisom muddo kulli falaayaradii dadka loo qaybiyay. dad badan ma oga Soomaaliya. inkastoo dadka numberkan ka garan karna Minnesota inta joogtay iyo mataqaana numberku inuu yar yahay. marka taas waxaan isleenahay ma garan karno meel wax ka yimaadeen, balse see horta ku ogaatay shirka amisom imaanshiisana see u aragtaa iyo wixii fikir kale aad qabtay ku dar. magacaygu waa Sadiq Yusuf Minnesota deganahay. shirkan aduu haddaan imid maanan wax badan sii joogin, laakiin warka waan haynay maanta iyo think shalay daraad ilaa berri inuu shir jiri doono. guud ahaan way fiican tahay in ay amisom sheegto qorshahoodii wuxuu yahay, laakiin waxaan u arkaa mashruuci jiray gudaha wax way qabteen, laakiin heerkii la rabay maaha. anu waxaan jeclaan lahaa inay ayagu gudaha hawl ka qabtaan, nabadgelyo sugaan, Soomaaliyana ku caawiyaan inay cagaheeda isku taagto. uma arka inay wax badan hadda qurbaha oo kale ay warwareegaan. dadka way wargelin karaan, laakiin waxay ila muuqanaysaa mashruuc kaloo dheeraada oo ah in qurba joogta lagu gaadho. macnaha wufuudda socotay iyo waxaasoo dhan waxaan ka doorbidi lahaa inay dalka gudihiisa socdaal ku kala bixiyaan, meelaha nabadgelyada sugaan, ciidamada Soomaaliya inay xoogga saaraan dhisitaankooda. sidaa kaliya anagu dalku noqon karnaa. ma rumaysnin inay noqon karno inaan ahaano 10 sano 20 sano kadib dad ma aragtay kala daasanoon ciidan lahaynoon ma aragtay dal jira, macnaha dal aan ciidan lahaynoo sidii noogu yimideen inaan ahaano ma doonayno. marka waxaan jeclaan lahaa inay xoogga saaraan bulshada Soomaaliya in fact ka filayso inay dhismaha ciidanka Soomaaliya ay xoogga saaraan, qaybaha ay haystaan dhalinyaradan shabaabna ay qabtaan oo markaas ay gacanta dawladda ku wareejiyaan. guud ahaan way fiican tahay inay dadka wargeliyaan wax u yimideen, laakiin saan kuu sheegay hadalkoo kooban ujeeddada ku soo ururaysaa. ujeeddada amisom ay meesha u timid waxa weeyaan inay dawlad Soomaaliya caawiyaan, ciidankii Soomaaliyadan ay kaabaan, meelaha maqan ay gacanta dawladda soo geliyaan, nabadana sugaan, ciidanka Soomaaliyana wax ka dhisaan ama ay dhisaan ama ay ku caawiyaan inta la dhisayo nabadda dalka sugitaankiisa. marka wixii intaa ka sii dheer waxaan u arkaa inay tallaabo dheeraada aan loo baahnayn oo meeshay dawladda Soomaaliyeed qaadan lahayd ay maaragtay dawladda Soomaaliya looga baahan yahay iyo bulshada Soomaaliyeed iyo hoggaanka Soomaalida inay bulshadooda soo gaadhaan, yimaadaan, la hadlaan. hadda waa keligood ma rumaysnin inay waxdada Soomaali ah ay socdaan. waa fikirkan haysto. marka ma garanayo
keligood ma arday ma Soomaaliya matalayaan maxay matalayaan wax matalayaan ima caddo aniga ma ogtahay marka waxaan islaahay waxa haboonaan lahayd inay hawshoodu ku ekaato nabad sugidaas iyo dhismaha ciidanka Soomaaliya inkastoo looga baahan yahay Soomaalida in ayagu ay ka go'naato inay qaran noqonayaan inay noqonayaan qowmiyada la kala qaybsado adaa soo koobaya yay u taalaa dadka qurba joogta oo Soomaaliyeed in la gaaro oo dib u dhiska iyo dal dhiska iyo horumarka in ummadda Soomaaliyeed qurbaha joogto ogta dadka aqoon-yahanadii wax garadkii siyaasiyiinta ummadda Soomaaliyeed dibad bay joogtaa yaad aaminsan tahay inay hawsha qabtaan ma hawsha dib u dhiska dalka maya dadkan dibadda jooga in la gaaro oo lala hadlo oo warbixin la siiyo shaqada ma shaqa amisom ba amisom shaqa dawladda federaalka anu waxaan isleeyahay waa dawladda federaalka iskale arrintaas amisom meele haddii timaado in dawladda wax lagu caawiyo waa suurtagal laakiin hadday noqoto arrimihii siyaasadda iyo arrimihii wacyigelinta bulshada iyo gaaritaanka qurba joogta dawladda federaalka iskale aan rumaysnahay waa dhici karta inay waxyaabo yaryar ay ku kaabi karto maxaa yeelay arrintan arrin nabadgelyo ma aha ma ogtahay inay soo gaadhaan qurbaha nabadgelyo ma aha oo dawladdu soo safri karto aad baa mahadsantahay waxaan ku fahmay dawladda federaalka hawsha u taala waa mahadsantahay walaalahay bismillah sidoo kale waa barnaamijkeena had iyo dan iyo telefishinkii Leyli TV oo wareysanaya dad ka mid ah akhyaarta magaalada oo runtii dadka ugu caansan ka mid ah waan rajaynayo inay naga siiyaan waxa ayaguna ay dareemayaan see u aragtaa shirkan Minnesota ka socda shirkan Amazon ee abaabushay dad badan waa lagu kala fakar duwan yahay dad way soo dhaweynayaan dad waxay leeyihiin dawladda federaalka shaqadan iska lahayd dad waxay leeyihiin Amazon inay qabato wax dhib uma aragno adiga see kula taaragtida wallahi anigu waxaan u arkaa shir fiican inuu yahay Amazon hadda waxay involve ku yihiin arrimaha Soomaaliya waxay rabaan inay ogaadaan muddo badan involved ku an couple of years waynu ku ahaan doonaan ilaa mandate inta ay haystaan marka waxay daneynayaan inay wax badan ku ogaadaan Soomaalida diasporada ee dibadda degan oo saameyn xooggan ku leh arrimaha Soomaaliya wax ay ka aaminsan yihiin waa aragti fiican annagana Soomaali wadankoodii ka naxay ayaynu nahay inaan tala ku yeelano waxa ay ku xun yihiin tilmaano waxa ka maqan ku darno wixii sixid u baahan saxno xaq waxaan u leenahay waa wax aan wadanka Soomaaliya aan ku caawin karna as Somali citizens oo concern ka arrimaha Soomaaliya socdo so inayna soo approach gareeyno na soo gaaraan oo aragtideena as Soomaali ahaan laakiin Soomaalida dibadda ku nool oo arki kara gudaha ku jira bisma ahane aragti ka duwan angle ka duwan inayna soo gaaraan annagana waan ku faraxsanahay waana soo dhaweyneynaa aniguna waxay ila tahay maanta programka waa 2 maalmood maanta bis uu dhacay soo far sidoo hadda uu dhacay aad uu igu fiican yahay berrina qaybta ugu muhiimsan ee dooda dhabta ah ee saddexda category oo loogu tiragalay reconciliationka iyo labada category kale oo loogu tiragalay in laga doodo berri bay dhici doontaa ka bacdi ayadan waxaan ogaan doonaa maxsuulka ka soo baxay natiijada laakiin soo far maanta sidii wax u socdeen inay noo warbixiyaan ciidankii dadkii ka socday officerskii special representative office ka socday am so happy inaan ka qayb galno arrin fiican oo aad u qiimo badan bay ilaahay qodobada waxa ka mid ah ay bari nagala hadli doonaan dib u heshiisiin shaqadaas shaqada amisom u taala hadba sida loo dhigay it depends way ku xiran tahay always inaga waxaan xaq iskula yeelan karnaa inaan isweydiino nin saddexaad oo inaan annaga islaayni wadankeennii burburinay 23 sano qof waa ku caawinaa ku dhahay inaad maanta inuu sida u caawin karaa inaan dhahno positionkaas inaga isgeyni soo marka anigu waxay ila tahay marba haddii aynu meesha naalna aynu ognahay meesha aynu ka soo safarnay aynu ognahay wax aynoo dhiman aynu ognahay cid kasta oo humanitarian ama afrikaanimaha kula sheegto ama islaamnimaha kula sheegto waa ku caawinaa ku dhahay inuu ku yimaado wax ka qaldan ma lahan haddii inaan isu saxna aynu rabno society Soomaaliyeed ee meel kasta jooga ama fiirsanaya haddaynu ceeb nala tahay in dadka la nacaawiyo in laga hadlo annaga in is ceebaysana waaye cidii gacan noo fidisay qof biyo ku dhacay qof gacan u fidiyay inaad gacantaa soo qabsato ku soo baxda moogay wax ka qaldan ma laha anigu saas aad baa mahadsantahay